Masuuliyina ka tirsan gudida kaambeynka Xisbiga Kulmiye gobolka Socdaalka oo Socdaal ku tagay deegaanada teedsan Waqooyiga gobolka Socdaalka ay kamid ahaayeen deegaanada Ceesho Balidiiriye Boodley iyo degmada Kalbarre deegaanadana cagta dhigan wafdigani oo kala kulmay soo dhaweyn diiran ayaa xadhiga ka jaray xafiisyo ay ka furanayeen deegaanadaasi waxaana munaasabado kooban oo loo sameeyay xadhiga jarkaasi ay sheegeen taageerayaashii ku sugnaa deegaanadaasi inay taageersan yihiin Xisbiga Kulmiye dadka daayo dunyada iyo duurjoogta deegaanka Boodley ama degmada tan iyo aageedu waa xisbiga taageerayaasha xisbiga Kulmiye oo musharaxa ka yahay madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi Cabdi ayay dooranayaan oo diyaar u yihiin oo ay u taagan yihiin waligeeba waxaanu ahayn Kulmiye imankana waxaanu nahay Kulmiye haddii aanu nahay waxaanu anana u baahanahay annaga oo Kulmiye taageerayna oo ay tahay dawladdeedii dawliga ahayd ee aan walba ahayn aanu guul baanu taageeraynaa iyadoo aan la wacyi gelin oo aanay nagaga iman haddana waxaanu sidaas aanu isla qaadanay deegaanka iyagu mudane iyo marwo dhammaantayo iyadoo aanu dhan wada jeedo sidaas aanu wada qaadanay maantana waxa weeyaan annagoo xisbiga ahayn Kulmiye hore u ahayn annagoo sidaa go'aansanay waanu siboodnay waana idinku soo dhaweynaynaa waana ku mahadsantiin waanu taageersanahay xisbiga Kulmiye waanu taageersanahay iyo Muuse Biixi aad iyo aad baanu taageersanahay go'aankana waanu gaadhnay inaanu raacno xisbiga taageero waa go'aan baanu ku gaadhnay maamulka dhammaan halkan dadka jooga horena waxay ahaayeen xisbiga Kulmiye maantana waa aragtaan dhammaan waa xisbiga Kulmiye dubna waxaanu ku rajaynahay inaan wax ka noqonaya aanay jirin Masuuliyiintii ka tirsanayd gudida kaambeynka Xisbiga Kulmiye gobolka Socdaalka ee Socdaalka ku meeraayay deegaanadaasi ayaa uga mahadnaqay taageerayaashii soo dhaweeyay ninka ilaaha waxa siinaya Kulmiye quraan horta run ma sheegin ninka ilaaha wadano quraan siinaya run ma sheegin nin waliba halku doono uu mari kara laakiin waxaynu inagu codaynaa Muuse Biixi Cabdi inta waxa weeye qof waliba uu arkay inay Kulmiye yihiin warso Kulmiye ma tiidin soo Kulmiye codayn mayno soo musharaxa Muuse Biixi Cabdi codayn mayno soo lama garab taagin hiiliyo hooba iska ilaaliya niman ku furin yuug ina rarin Kulmiye uu nahay kaasa xoogeen iyo xoleeni ku maqan yahay 8 sano iyo 7 sano 15 sano ayuu xisbigani soo jiray waa xisbigii 80 cod kaga tagay 80 cod kaga tagay ee u turay ummadiisa iyo dadkiisa waa xisbiga aan la idinka sheekaynayn ee dalkeena horumarku gaarsiiyay inta dhimanna kii gaarsiin lahaa waa Muuse Biixi Cabdi oo maanta madaxweynenimo loo dooranayo maanta waxba inooma kala qarsoonay waa la soo saaray dadkii codaynayay tiradooda deegaanada ay yihiin meelaha ay ka soo jeedaan 400 iyo dheeraad 450 dad lagu qiyaasay ayaa xisbiga Kulmiye dadka u codaynaya deegaamadiisa ka soo jeeda Khadar Cabdirasaaq Saleebaan Khadar Hanad Bulsha TV Burco